بسم الله الرحمن الرحيم وبسلامة سلام كدب waxaan rabaa maanta in erey murtiyo Soomaaliyeed aan ka wada hadalno maamada waxay dhaheedaa aflagaado colaadna wax kama tarto nabadna way ka geysaa markii iigu horeeyay ee aan maamadan maqlo waxay ahayd bari anoo jooga Liibiya iyo nala xiray xabsi Liibiya ku yaala nala geeyay xabsiga waxaa ku jira Soomaali badan iyo Eritrean iyo Sudan dadkan inta badan waxa loo soo xiray waxay ahaayeen adoo waa taqaanaan dad kulligood raba inay tahriibaan xabsigii dadka aan isku barana waxa kamid ahaa wiil Maxamed la yiraahdo Maxamed wuxuu aad u isticmaali jiray kaniinigan la yiraahdo waxaan madax xanuun ku roona Tylenol ama ibuprofen waxaa jirta marka qola IM la yiraahdo oo maalinta Khamiista timaado oo qofka xanuunsan soo yara wareysanayso kaniinina soo siinayso Maxamed kii marka uu ku badbata Khamiis kasta gacanta u taagtaa soo helay ibuprofenkaas markaan Maxamed isbarno marka wuxuu yirniyo adaa cusub maanta hadii qolada IM ka timaado gacanta taago oo adiga soo ana xanuunsan dheh xagee laga hayaa dil guraana madaxa dheh si aad igu soo qaado Tylenol marka wiil saaxiibaan noqonay ay haaneen gacanta aan taagtay maalinka Khamiista markay yimaadeen waxaan u tagnay qoladii haligay qol ay fadhiyaan qof dhakhtar iska dhigay oo ku wareysanaa marka xagee laga hayaa madaxa xanuuna is box meeshaan Tylenol iga soo bixisay markaan bixi magaal may interview aad mareeda qof ku wareysanaa waxa la iigay nin magaciisa igu sheegay Francesco oo Talyaani ah Francesco bas uu i wareystay wuxuu yiri ka waran noloshiin xabsiga waase waxaan uga sheekay marka dhibaato badan ee xabsiga jirto waxaan irinay waa nala garaaca dadka xanuunsan lama daweeyo shaqo inta la wada lagu soo shaqeystaa la soo aadu dhibaato badan uga sheekay wuxuu yiri birri toolo jimcaha yiri xabsiga waxa soo booqanayo yiri midowga Yurub baarlamaankiisa oo markaas uu madaxweyne ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka marka wuxuu yiri markay ka meesha ay soo galaan yiri xerada aad ku xirantihiin aniga waan soo wadaa waxaan keenayo qolka adinka aad ku jirtaan markaan ku keenay la yiraahdo yaa hadlaayo gacanta taago waxaan aan adiga ii sheegayso yiri ayagoo sheeg okay adiga qolka xabsigan ku soo noqdo Soomaalida aan soo noqdo waxaan nimeeyahay biri toole midowga Yurub soo socdo markuu noo yimaado ninka Talyaanigan waa la soo ballamay marka waxaan rabaa inaan dhibteena u sheego hadii dadkii waxay dhaheen wallahi fikir fiican waay kuwa wada tacbaan ahaayeen lirkuwana dharka ka siibeena waa u sheegina dhibtana lagu haayo daaya sidii adu maray cishi amal ay too la siisay seexanaya yaa wiil dadka xiran kamid ah Cabdicasiis la yiraahdo oo dabeecad ahaan dadku ma bahadlaba habeenkii inta madaxa dhulka dhigto lugaha kor u taagto oo sidii ay u qayliya oo waxa la siraaniga waxba ka qaldan ninkii ay yeeray wuxuu baraada balkaalay aanu tagay wuxuu yiri niyahow caaw mahmahan ku sheegay wuxuu yiri mahmah in ku sheegay waxay tabaamad wuxuu yiri aflagaado colaad wax kama tarto yiri nabadna way ka geysaa waxaan ula jeedaa yiri hadii maanta biri markay yimaadaan yiri gaaladan midowga Yurub ee aad dhibaatada iyo ceebta nimanka ay nagu hayaan aad u sheegto yiri markay tagaan cid noo harayso waa Liibiyaan yiri marka wuxuu yiri niyahow tan ugu aflagaadeeda badhana gelin yaa habeenka xogaa waa yara fakiray adiga maalinka dhaanoo fakiraya subaxii waaga markuu bariyay irideen la soo furay waxa soo galeen midowga Yurub wasiiro iyo xildhibaano qolyooyin kaamirooyin wato idaacadaha caalamka Al Jazeera CNN BBC telefishinna badan oo magac ahaan markaas aan aqaan iyo soo wada galeen gabar Lubnaaneys ay wataan oo turjumaan u ah waxay dhaheen hal qof oo Carabi ku hadli yaqaan oo aan wareysanaan u baahana dhalinyaradina xalay waxay ogaayeen moogtaa in aniga aan ku tashanay inaan anigu hadlo waxaan Cabdirasaaq aan noo hadlaayo waan istaagay gabadhiya markay waxay tiri su'aalaha idin weydiina waxay tiri maxaad u xiran tihiin waxaan saddex siba waa u xiranahay qolo waxay u xiran tahay ayagoo dal shisheeya sharci darro ku soo galaya yaa la soo xiray qolana naftooda ayagoo haligaayo badda isku shubaayo alla soo qabtaan yiri qolana ayagoo magaalada iska socda alla soo qabtaan yiri markaas waxaan ka dhigaa in yacni wax dhibaato badan aysan jirin waxay tiri waayeen nolosha xabsiga ka waran
وعارني هو أنت أنا ما أنت هدينا اللي والدينا حبسك كبحر المجال إنه لودي قاب عن إنه ولا نحت عملنا كان سبت حاري حبس كان وحنكوها يسنا سدح عنطق قد قراع الشر وحنكوها يسنا روح برشة وحنكوها يسنا الشقة والشقة أنا لصيا وصو شقة يسنا مركو هرنت يشقوي جبت لكن شقة حواي انت الله وضع له وصو شقة اللي بنسوي دلها أضو التعبان اللي بيسوي علينا مركو حاري حبس كان نور في عن يانكوها يسنا وحان إري هجاميها كعنك الليبي كورنيل معمر الغدافي موادين الصومالي قالوا يقانا إري موادين كلابات الليبي مركو الصومالي هدانها هذا هو شرفنا الليبي واحد بقى ما قبنا مركو وحان هذا نقول محد علينا سراكيش ماشي نقول حيس هذا ينورق عليها أنا وجه ذا مركو حايس بدل وجهي سراكيش الليبيان كويس ده هاي كان مو بلايش يا فرحت قولاد إن يوروب نوبا يا بيمبا لأن حبسي أمانة أي دحاي واحد بقى ما قبنا عيدان أنت أصلا مسعنية وأنا بحينا عار أنت هذا بحين سؤال ميدو ويديا عار أذنكم هذا هذا محسن نقص ضمتين وزيرك أريمها دبد الجرمال كنين مركز أي جوابي عيرو حانا هو يعني وزيرك أريمها دبد الجرمال كحانا هو إنك هذا هو بيامين هايو قولان رأي يروي حبسي كان صوب وقت وحانا ماشان أني ميدو يري إن أنا خو بينو يري بجد أنا خو بحنو dadka soo tahriibay dhaqaale aan ugu tala galnay oo si loogu badbaadiyo marka hadda qaabka aan ugu jawaabto yiri waxaan ba dareemeynaa dhaqaale aan liibi ku siiyeen inay wax fiican ku qabanayaan waana mahadsantahay wax kale oo jeceshay u diileen ma jirto waxaan yiri wax kale ma haye waxa maanta waa maalinka ugu horeeyay inay qof Jarmal ah oo soo hor istaago marka taana waxa ii tahay mudnaan gooniya waana ku mahadsantahay adoo inaga tagay Soomaalidu waxay isleeyihiin ninka hayta waxba ku ballanteynay جو أمان وشيكي وحن 5 دقيقة دمينا مدير نور اللي تنيك ماشي هستي يسرعكيش يسير سعودان صوّد النقطة عبد الرزاق وينك هاي كلام بحالي إذا ما أنت واحد غطد البوق وصميني هاي حائر الشنا مركب دي مربتي تعبانة هاي إنه مركب حابس وجرنا أرتو حائر شنتان دي مربت ماشي كسيد دابا شنتي اللي يرجرين ما تقانا ها إردك بحر محاك الله ربطاي حار انتهى من المدة إلا ما أنت دنبي ومحرنين نيو عيروت الدولة أو حرنتين هالمر يريد إذا كان مفرق لكن هبين كستا الشنان دينا هبين كستا الشنان دينا كل جيل ماشي هذيك دينا إيه بالكالة هذه كانوا أنت إلى بعير هذه كانوا يريدك بحث كبح مركب أرطار ماشي عن الصعود معها الحبس جالسين كشاكين وحان الصعود وحيتها أفلجات عرضنا وحكمت نبضنا ويكاك جيسان إنها الدلوع اللي كدرتها وحيتها ما أنت مركز قف عايضة ولاد اللي بدين يدين كده حيسي وحبوا ما ذنبين نبض إيدين ده حيسينه واضو مسي مركز ما أنت الصومالي هدانا وحاقوا بضاني قف كستو ضدو أفلقات دينا مركز أو أفلقات دينا أبنا نبض واتكفوا جاني قف كأد أفلقات دينا نبمو قضوط وجيسا ملحن مركز وحان براروجينينا وناقي يقروح ذا بسلة inaad afkaaga bartoodan dadka aadan cayn kii ku caayana aad u sabarto ma mahadsantiin